فرحد ويني مانتا إنان كسو قيب قلو حفلة تن لغو صحيح أيو هشيسكا بلارين تا ايربورت كقروي runtii aad iyo aad bay farxad ii tahay sidii uu sheegay jaamac ama ragii hore hadlayay waa fiican tahay waqti in cimriga ku gaarsiiyo waxa aad ku tacabtay for example aniga iyo rag aan ka mid ahay oo ugu horeeyo madaxweynaha hore dawladda Puntland Senator Cabdiraxmaan iyo shacabka reer Garowe iyo gudiyo runtii ganacsatada reer Puntland oo ilaa 2009 baan anigu imi oo wasiir ka dhaqday ilaa maantada rag dad ka mid ah rag iyo dumarba dad ka mid ah reer Garowe ayaa la daba joogay service iyo hawl aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta heerka ay marayso ka soo qayb galo oo ah wixii laga sheekeynayay ballaarinteeda iyo horumarinteeda iyo iyadoo aynu filayno inay noqoto international airport maybe East Africa ama Africa ba kuwa ugu horeeya ka mid ah haddii aan u jeesto xagga company-gan Frontier oo dawladda Shiinaha ka socda runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan ku rajo weynahay in sidii hore loo sheegay ay kaga dhawayn doonaan waxyaabaha ay sheegeen waxaan ugu mahadcelinaa dawladda Shiinaha iyo dadkeedaba taakulayntii taariikhiga ahayd ay Soomaaliya u geysteen oo tii hadda madaxweyne ama Senator Cabdiraxmaan sheegay ay ka mid tahay sida dariiqa dheer ee lifeline-ka sida maxay tahay waxyaabaha badan ay ka qabteen iyo kuwan dhow ee hadda ay khaasatan Puntland hadda ka wadaan oo ay ka mid tahay kuwan madaxweyne sheegay oo ah Gaalkacyo airport iyo dariiqaas oo hadda qalabkii uu yaalo laakiin yaraan rajaynayno sida madaxweynuhu codsanaya anaan la codsanayno in dhaqso aanu wax looga qabto waan ku rajo weynahay inay kaga dhabayn doonaan dawladda Shiinaha interest ma doonaan sida aan ku malaynayo reer galbeedka ama dawladaha kale waxa laga yaabaa iyagoo interest kale meesha inay wax galiyaan laakiin dawladda Shiinuhu waxaan aaminsanahay iyagaan inay shuruudo ku xidhnayn wixii ay waxaan u ballan qaadaynaa maalgelin iyo amni maalgelinta inaan dhiiri galino amniga inaan ballan qaadno 100% inaanu soo dhaweyno aad iyo aad baan u ballan qaadaynaa welcome baan leenahay soo dhawaada gacmo furan baan soo dhaweynaa waxa la leeyahay wixii waajib naga kiisaarana waa fulinna xagga dawladda wixii aniga oo ka jawaabaya dardaaranka Islaan Ciise oo dawladdu waa inay maxay tahay gacmaha ku qabataa oo doonta mashaariic iyo maalgelin waa yeelay Islaan waxaanu proof garaynaynaa
waxaa la yidhi udlub alcilma walow kaana fi siin marka waxaanu ugu tagnay siin baa loo doonay oo madaxweynaha iyo dowladda tan Puntland ilaa siin bay maxay tahay u raadisay inay wax qabato waana taa keentay oo hadda ay hor fadhiyaan waxaan ballan qaadaynaa meel alaal meesha inala gasho inaan soo dhaweynteeda iyo baahidoonkeeda Puntland horumarinteeda inaan ballan qaadno shacabka Puntland waxaan kula dardaarmayaa shacab aad u dhagan nugul weeyo waxaan xusuusnahay madaxweyne Cabdiraxmaan markuu madaxweynaha kale 20 kilomitir waa ku dhaweyd baan u malanayaa intii loo xeeray inagoo aan waxan bafilayn oo maxay tahay ku talagalayna inay iska inoo fidayso 20 kilomitir iyo ku dhowba inaanu uu igu amray aniga anoo wasiirkiisiya wixii laamiga xagga ka xiga inaan cidi degin oo aanu ka dadkii ka raray walina sidii bay tahay shacabku sidii ugu dhagan nuglaaba ugu dhagan nuglaanayaa marka wasiirka waxaan u sheegnayaa 20 kilomitir iyo ka badanba haddaynu u baahano waa la helayaa ku talagala wasaaradda iyo wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa firfircoonida iyo kartida iyo nasiibkaba kartidu dad badan oo orordaa jira oo la iska orordaa laakiin maybe inaad nasiib dheer tahay inkastoo laga soo shaqeeyay waxa aan terminaalka markii la furayay Boosaaso oo madaxweyne Cabdiraxmaan oo madaxweyne ah baan soo maray terminaalka musqulaha iyo meelaha marka wuxuu aad bay nadiif u tahay dhalaalaysa waxaan ku madaxweyne ma dhalaali doonto haddii aan shaqaalaha niyadiisa iyo moralkiisa la dhalaalin oo shaqaaluhu dhalaalin iyana ma dhalaali doonto aad baan ugu mahadcelinayaa oo iga aqbalay waxay markaa ahayd waxbay markaa ahayd wasaarad laga dhigay waxaan garanayaa adeegii ugu badnaa ee wasaaraduhu ay qaataan hadda shaqaalaheeduna waaba yara adeegii ugu badnaa inuu berigaas ay qaadan jireen oo waa heerka hadda soo gaadhay aad baan ugu faraxsanahay aniga oo maxay tahay bilaabay wasaaradda inay maanta halka marayso oo meelaha ugu wanaagsan ay tahay aniga iyo madaxweyne Cabdiraxmaan iyo ragga nala midka ah waadna yaayirtaa waad faraxdaa marka caruurtaada aad ay dhalato oo aad koriso oo dabadna ay future yeelato oo ama guursato ama maxay tahay quraanka dhamayso ama baac mushtari noqoto marka ay noqoto marka aad baan waxaan ugu faraxsanahay ugu nayaayiroonayna wixii aanu bilownay oo annaga la kaashanayna shacabka reer Puntland special reer Garowe maanta hadday halka marayso aynu ku talagalayno inay noqon doonto East Africa garoonkii ugu weynaa waan rajaynaynaa inuu noqdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii musharaxa iyo wixii la oran lahaaba hore loo yiri waxaan inaan ku duceeyaa halka aan soo taagay hadda aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku soo gabagabeynayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.